waxaan ka mid ah odayaasha beeraleyda ah oo isxil qaamay marka beerta waxaan ka socdaa barako oo ku taala 22aad oo maayirku sheegay oo ninku magacaabay baan leeyahay Cabdullaahi Salaad oo yiri ha ka qayb qaato maaragtay dhulka cagaarinta marka kulli markaan beerti bilaabayay isma lahayn dhulku saan noqonaya laakiin dad badan waxay ugu yiraahdeen meeshan iska daa waad ku khasaaraysaa rag badan baa ugu yiri meeshan waxba iska gelin xoolaha haddana waxa way dad baa waxay yiraahdaan meeshan jannal iyo afkooyo la soo raray way marka garow dhan waa laga dhigi karaa afkooyo jannal hadii la socdo qaamo anoo kaligay odayba inta qabtay marka intaano dhalinyaro ay inta garow joogta iyo Puntland inta joogta hadii caasimada isu xilqaanto in la cagaariyo ama Puntland oo dhanba way cagaarin karaan maaslee inta waxaan ku darayaa waxa la sheegay caqabado biyo la'aan biyo cusub ah iyo dhul adag oo dhagaxa waxaan xasuusinayaa meelo garow nugaal ugu cusba badan oo cuun meelaha hadda cuun iyo loo baxshay Soomaaliya maqcuun waxa loo baxshay waa dhirta ka baxda meesha biyo ka dhan aad bay maarta u yihiin maarta biyo oo cusba هذا باشا Soomaalidu waagu isticmaal la yiraahdo mayrada geedka mayrada waa geed qurux badan haddana wuxuu ku baxayaa meelaha dhanaha kuwaas kale hadii inta la soo maaragtay guro magaalada meelaha qaararkii lagu qurxiyo jardinooyinka iyo laamiyada dhinacyada waa geed quruxa waa geed dhanaha ku baxaya waana geed laakiin biyo badan buu u baahan yahay marka dhulkana adagna wuxuu u baahan yahay in la qodo dhulka adag oo maayirku sheegay wuxuu u baahan yahay in la qodo hadda beerteeda meel qarka baan qoday waxaan qoday mitir iyo bar waxaan ku beerageeday waaweyn baxar saaf ka mid yahay marka meelaha adag oo dhan waxa baahan in la qodo oo marka digo iyo ciid iyo la isku shubo la isku daro ciid jilicsan ciidda jilicsan waa muhiim ciidda in lagu dhex daro ninkii la oran jiray bila rafle gaalkacyo magaalada la yiraahdo wuxuu sameeyay magaalada dhan wuxuu ku shubay carro jilicsan wuxuu ka soo qaadi jiray xeebta jiriiban meel u dhow waa ninka baxshay bulsho bile bulsho makaliya bulshada waxay oran jireen bile si aad baraa qaatay kelmadda dadka dhan inta la kiciyo oo lama la hawl geliyo oo maaragtay yaani wax qabad loo soo jeediyo dadka magaaladan garow aan joognay waxaan ku dhisi jirnay annaga ka qayb qaadanay iska wax u qabso marka intaan hadda fikradaha wiilasha yarka ay gabdhahan soo jeediyeen baan caaw la yaab aad baan la yaab waxaan u baahanahay dadka dhan intaan boqolaal jeer ka badan inta la keeno tada in laga ururiyo waa marka lagu maaragtay lagu shaqo tago hawsha lagu qabto anagoo diyaar waxaan u nahay wixii maayirku soo jeediyo inaan ka qayb qaadano qaybtayda anagoo lacag doonayn dad baa waxay leeyihiin mashaariic baa la wadaayo maaragtay waa kano laakiin anagu intaanu nursery sameeyno oo dhirta ku diyaarino insha Allah baan rabnaa inaanu dhiibno iyagoo lacag la'aan laakiin hal ogaade geedkan la abuurayo taladayda waxa weeye waa ilmo yar oo dhashay geedku wuxuu baahan yahay dugsi wuxuu baahan yahay dabaysh dhulkan waa dhul dabayleed buu badan yahay xagaa kala dabayl baa dhacday geedaha badan waxa dilay markuu yar yahay dabaysha dilaysa waa qodob geedka waxa dilay qoraxda badan geedka waxa dilay biyo laga badiyo geedka waxa dilay maaragtay waxyaalahan maaragtay oo geedo bahalla cunaya bahalo cayayaan baa geedka cunay xoolaha cunay geedku markuu rabaa cid taqaana oo xanaanaysa ilaa geedku oo har yeesho har waxa la rabaa sidii ilmo yar in loo koriyo arinta waa in la ogaadaa